waxaa laga badbaadiyey ama se dad areada train stationka joogaan asaga oo rabo inuu tareenka isku dhigo ayaa la badbaadiyey isla markiiba booliskii asagaba awalba raadinayay ayaa loogu wacay markii la wareysanayay lagu yiri de waxaad samaysay soo samayso aabahasaas u gashaybee adigu waaya isku dilaysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan walaaladeyda waana walaashin hodane channelka diga down soo channelkeena hodan online haddaad nagu cusub tahay soo dhawo gacmo furan subscribe nagu dhiirigeli videoga aad uga jibna like fara badan free ma ahan asxaabay iska saar like insha Allah qaybta commentigana ku soo sheega sad qisadan oo aragteen qisada maanta inta aanan u guda gelin hadii aad videogan aad daawanaysid caawa live ayaan soo gali doona hal saac markii ingiriiska saacad ingiriiska hal saac habeenimo ama safiinimo markii ay tahay ayaan live soo galaya soo la socda insha Allah. qisada maanta waxay ka dhacday isla Masar. qisada maanta waxay ku saabsan tahay laba walaalo Bani iyo Salim ayaa la yiraahdaa labada walaalood. Bani wuxuu jiraa 30 jir Salimna wuu ka weyn yahay wuxuu jiraa 35 jir yani 5 sano ayuu ka weyn yahay. Bani iyo Salim waxaa iska dhaleen hooyo iyo aabo bani aadam ayaa dhalay hooyo iyo aabo sama okay Bani iyo Salim aabahood waxaa la yiraahdaa Mahmoud. Okay Bani iyo Salim marka qisadooda saa u fahano dib ayaan sanado fara badan u noqon doonaa. Ustaaz Mahmoud oo Bani iyo Salim aabahood wuxuu guursaday maamadii dhashay Bani iyo Salim labadan wiil kaliya ayay u dhashay ahayd. labadan wiil markii ay jireen waliba kan ugu yar oo hadda 30 jirka markii uu jiray 7 sano ama 7 jir oo ahay oo kan kalena 12 jir oo ahay ayuu naa kala guursaday aabahood yani ayagoo yar oo wali qaan gaarin ayuu aabahood naa kala guursaday. markuu naagtii kala guursaday dhinacii kale ayaa loo okay maamadii kale gadaal laga guursaday waxay dhashay 2 wiil iyo hal gabar 3 caruur ayay u dhashay. Maxamuud marka meeqa caruur uu leeyahay 5 caruur ayaa saas adduunka ugu joogta. Bani iyo Salim markii aabahood oo dhinacii kale u farabatay sidee khilaaf ayaa bilaabday hooyadood ayuu furay xagaas ayay marka cuqdadu ay ka timid. okay marka Bani la wareysanayay gadaal aan u dhigano wax walba isku day inaad clipka xir dhamaysataan insha Allah sad qisada u fahantaan. Bani iyo Salim aabahood marka ayagoo yar maadaama uu ka tagay oo naa kala guursaday oo caruur kala dhaldhalay ayagoo u baahan labadooda ayaa u soo shaqeynayay wixii masruuf oo bishii ay u jartay dawladdu ma ahane siday sheegeen labada wiilbo ayaga ayaa shaqooyin extra ka soo shaqeyn jiray. odaygan marka Maxamuud wuxuu leeyahay dukaamo silsilada badana Masar iyo Carabaha waxay leeyihiin hadda tusaale kale hodan online channel ah leeyahay hodan online family no furay hodan online family 2 4 6 saas camal no yani qofka haduu dukaanka u kala kaco silsilade u sameeyaan ama se ko laba oo the same magac wax yar le gadaal laga raaciyo saas camal odaygu wuxuu lahaa supermarket iyo aad u fara badan areada la yiraahdo mantiqada Giza la yiraahdo oo yani muxaafadada Giza oo waliba meel la yiraahdo Imbaba mantiqa Imbaba awal mar aan maqlo waay Imbaba la yiraahdo ayay ka dhacday qisada waxay dhacday 2018. Maxamuud Bani iyo Salim aabahood ayay u tashteen waxay ku yiraahdeen aabo soo dhawo waxaan rabnaa in aad hadda waaweynaanay waliba aniga jiishka aan ka shaqeysa ogtahay mushaharkayga shahriyan aan qaadanay ama bil walba aan qaadanayo iguma filo waxaan rabnaa inaad nasiisid dhaxalkeena intii nagu soo aadaysa aan nasiisid walaalkayga weyn. sidii ayuu ku yiri aniga inta aan noolahay dhaxal aan idin siinayo ma jirto laakiin lacag yar iska kuusa sida la sheegay qadarkeeda ayuu siiyay. sidii ayuu kana ku tahriibay oo ku baxiyay kana wuxuu ku guursaday naag. okay Salim wuu baxay wuxuu tagay ahayd wadanka Sacuudiga ayuu shaqeeyay wax u raadsaday Banina wuu guursaday yani 18 before waya because odayga waxa la qaarijin doono 18 way sad marka uu ogaataan laakiin waxyaabahan dhan 18 ay ka horeeyeen. okay Bani markuu guursaday naagtiisii waa la isfahmi waay khilaafaad because wuxuu lahaa balwad asalkiisa waa balwad ayuu lahaa awlaad badana ayagoo yar marka laga tago badankoodu ma ahan laakiin wax aan saas u badnayn balwad iyo waxay bartaan way kale ayay qadam because waalidii cadahay meesha ma joogo. okay wuxuu bartay xashiishad iyo waxyaabahaas ayuu bartay ahayd ama droogada ama nacasta sa u faantidbo naagtiisu ma aysan ogeyn. almuhiim markii ogaatay khilaaf waa way iska furtay way fasaqday
markaa wadamadaasna haddii ay naagtu ninka iska fasaqdo xuquuqaadkeeda dhan ayay ka tanaasuleysaa saas ayay uga tanaasushay kadib bani markay naagtiisii ay ka tagtay shaqo la-aan rafaad aabihii buu ku yidhi mar labaad intuu u tagay ani walaalkay waxba igama gelin lacagtii maalinkii dhawaad isiisayne aadna siisayne aniga walaalkay waa kaas wuu baxay isdabaray aniga naagtaan guursadayna way iska kay furtay waxaan gacanta ku haayo saas haawiya ayaan ahay waxaan santi aan gacanta ku haayo malahan lacag ayaa u baahanahay lacag isii haddaad isiinaynin ood ii quuraynin xataa at least waxaad isiisaa dhaxalkaygii markaasuu ku yidhi anoo xayi ah dhaxalaad dhadhaminaysaan ma jirto saac waxaan hayay shalay waa ku siiyey mar walba intaa lacagta aan ku siiy intaad soo burburaysa haddaa iisoo noqonaysid aan lacagaa ii dhibayta ma jirto anigu waa soo tabcay buu yiri aabahee miyiga dhimaani lacagtaana arkaysaan anaa usoo tabcay yacni shaqa cumri ay dhahaan saan yaa anaa usoo dhididay bax shaqayso isdabar iska nin ragaata amase nin weynaatay camalno bani marka wuxuu khadadeeda galay amase uu falankeeda galay inuu aabihii kaga takhaluso si uu u helo dhaxalka because aabihii wuxuu yidhi as long an anigu noolahay dhaxal maba i weydiin kartaan waxaan anaa u shaqaysay soo ma haddaan idin siiyo waa awlaadeydii aati yes haddii aan idin siiyo anaa idin gartay laakiin wax aad xoog iyo de intaad isoo hor istaagtay aan leediin dhaxalkaygiisi ood xabadka ii garaacan kartaan ma jirto aan inoo wade markaasoo bani wuxuu ogaaday in meeshaan wax lacag la yiraahdo aysan kasoo soconin soo sheegay asagiina shaqo dadku isku mid maahan dadka qaar ayaa ilaahay amarkiisa jismigooda u bartay inay shaqaystaan inay wax qabsadaan inay meel iska soo saaraan dadka qaarna ma awoodaan okay bani markaa wuxuu bilaabay inuu darooga isticmaalo inuu hooyadii kusoo laabto hooyadii lacag ka xado lacag qaato guriga waxa yaala dhangado rafaad iyo ayaa la kala maray hooyadii markuu iska burisay waxay ku tiri soco idhaaf beledka gal gurigii naagtii hore uu ku qabi jiray ayay ku tiri u guur gurigaagii soco halkaas ku noolaa ani habay iimaani anu shalay idinka ayaan bala-aan idin soo koriyey maanta markii aad weynaatayna halkaad aniga wixii tari lahayd haddaad aniga igu soo jeesatay iyo jaabkayga nafteeda u soo jeesatay orod soco ii dhaaf hooyadii marka guriga ay ka burisay dhibka dhan waxaa keenaya halkaas waaye hooyadii markii guriga ay ka burisay ayuu wuxuu ku fakerayaa markaas siduu odagan ugaga takhalusilaa si uu u qaato dhaxalkii okay dhaxalkii siduu ku helaa waa in odagaan u dhinta odagaana indha dhimanayo malahan wuu soo taagan yahay wuxuu marka bani oo ku fakeray marar badan in uu aabihii kaga takhaluso laakiin waa u suuroobi weyday tartiib marka wuxuu si uu aabihii u dilo wuxuu bilaabay inuu aabihii yacni relation amase xiriir fiican la samaysto aabihii buu yimid aaba iga raali noqo waa qaldamay ma qaldama waa ilaahay qaladkayga waa soo qirtay dadka kalena anigu day shaqo ma u baranin oo awalba lacagta adaadna siin jirtay almuhim dukaamadaada mid kamid ah ii shaqaalaysay odaygii baa uu ku farxay baa lee run ahaantii wuu shaqaalaysay dukaamadii weliba dukaanku odaygu xaafadda isla area isla deganaan xaafadii uu odaygu naagta kale maamada kale ugu qabay dukaan ugu yaalay ayuu ku yidhi kaale inta ka shaqey ana bal adiga soo dhawaatiday sidii uga shaqaynayay odaygii iyo wiilkii wuxuu bilaabay inuu aabihii close ku noqdo amase yacni xiriir fiican uu la sameeyo maalmaha ka mida marka odaygii meelaha maqribkii marka ay tahay ayuu u imaaday wuxuu ku yidhi aabo waxaan maanta rabaa in aan kusoo tuso surprise aan kugu diyaariyey gurigayga de maadaama nin rag oo weyn maanta aan ahay oon ilmo yarna aan ahayn waxaan rabnaa inaan wada hadalo sida rag camal يعني فهمي سما سيد رجع عمل إن أول هذا الله إن أي أباهنا إن كل هذا نواربا سربرايز كاسم كل ديارنا حرب إن كصوت الصو يا نوذي أو كوباهنا يا أبو تما أبا أي إسرها يويل كاغا أي كل ديارنا نهاية هذا أما سيد ما يستركا ومايا وأوراعي جوري مركا أو جالس سيد السجبة أفكي سكا قرتي أباهي أيان هرتا كل ويري قال إري الباب كمركا جلاش هذا ayuu wuxuu ku sii diyaarsaday ahayd madaraqad ya burus waay okay burus waay irida gadaasheeda ayuu bani sii dhigtay ahayd burus aabihii buu ku yiri marka yaaba soo dhaf yani respect camalno waa ogtahay qofka markuu ku ixtiraamayo qofkaad ixtiraamaysa la hormariyaa lumaya soo dhaaf saas camalno soo dhaaf aabihii markii uu sii socday mugta gurigu sii socday nab madaxu kaga garaacay ilaa uu aabihii uu dhaqaaq beela ama se dhaqaaqa joojiyo uu dareemay khalas aabi inuu sa dhaqaaqaynin
marka waliba marka la wareysanayo wuxuu yiri waan sugayo yiri ilaa uu ka dhaqaaq beela ama se xarakada uu joojiyo marka xarakada joojiyayna inta ayaan ka taabtay uu yiri yani asaaba ku sheegay inta ayaan ka taabtay uu yiri waxa ogaaday inuu san neefsaneen waa qaaday uu yiri marka meedkiisaan uu kharijiyo ayaan garan waayay uu yiri wuxuu sameeyay marka gurigii naagta uu ku qabay sariirtiisa qolkiisa jiifka ama se qolkiisa hurdada oo sariirta hoosteeda badana sariiraha Masar waxa way afar lugood ay leeyihiin sida kuwan wadamadan hormari maahan inkastoo jiraan kuwaas ka laakiin ma u badna dadka yani wax yar iska leeta kuwa afarta lugood sida wadamadeeni ay qabiyaan almuhim sariirtii hoosteeda ayuu geliyay aabihi meedkiisa caro ama si ciid uu soo gortay uu soo diyaarsay ilaa qofka markuu qof dil qaarijina ku sii fikra mugtay ciid uu soo diyaariyay markuu meedkii hoos u geliyay ayuu labada gees kaga tubay marka la weydiinayo xataa lagu yiri yani maxaa ahayd ciidan labada gees aad ka raacisay markaas wuxuu yiri waxaan maqlay buu yiri meedku marka uu muddo yaalo inuu yani uu qarxayo marka waxaan isdhahay yiri at least yani dhulka iyo qolka iyo guriga ka haleynin marka that's why aan caro ugu dhigay wali si caradu u dhuuqdo dhacaanka andan ande lafa markuu noqdan aan si tartiib lafa u soo qaarijiyo okay sidii ayuu sameeyay guriga ayuu ka soo baxay waxa uu tagay train stationka inta uu san tagin aabahan waxa la weysanaa 3 days ama se 3 maalmood wiilkii markuu aabihii gurigii ku soo khaarijiyay uu soo baxay habeennimadii si normal ah dukaankii uu ka shaqeeyay dukaankii oo xiray habeenimadiisu asaga baqartay night clubka ayuu iska aaday ahayd next daygii maxaami ama se lawyer ayuu u tagay wuxuu u soo bandhigay xaaladda oo ah inuu aabihii intaas oo dukaan uu leeyahay asaga iyo wiil la dhashay iyo 3 kale oo maamo kala dhashay meeqa camal ayaa asaga ku soo aadaysa fiiriya meeqa camal ayaa asaga ku soo aadaysa sidii ayuu u ogaaday wixii ku soo aadi lahaa oo kale kadib wuxuu bilaabay in sida la sheegayo khasnada oo dukaankii aabihii uu u dhiibay uu ku ridahay aab ii kaale ii caaw aniga wiilkayga atay ku nacbiye kaale ka shaqeysa inta khasnadeedii lacagtii ku jirtayna uu kala baxay 2 beri yani shalay uu soo dilay maanta iyo beri lacagtii ayaa lagu niikinayay asaga marka ma isdheheenin soo sheegay ma isdheheenin waxaan waa ka shifmaaya maadaama special wuxuu yiri maadaama aan ciid fara badan geesaha aan ka geliyay ma isdheheenin uu yiri daaqadaha iyo iridaha si fiican ayaa u xirxiray ma isdheheenin uu yiri yani riixadiis ama se urka ay darisku ama se jiiraanku ay urin doonaan sidii almuhim labadii beri normal iska ahaa laakiin intuu seexanayay guri wiil kale saaxiibkii oo alaabtan lisla isticmaalo nacasta ayuu iska seexanayay labadii beri marka maalinkii saddexaad markuu dareemay inay maamadii kale oo 3 caruur u dhashay odaygii raadinayso oo dukaamadii kale xataa la weysan yahay odaygii jaan iyo ciri meel u dhigay la weysan yahay ayaa booliska loo wacay markii booliska loo wacay uu maamadii deeleen maanta anigoo aabahay naagta uu qabiyo inaan aabahay ka weeraysto normal waa on dhaday aaba maxaa ka soo ziyaaday somaha okay markay ku tiri booliska ayaan wacay marka wayba bilaabeen baaritaanka ayaan cabsaday buu yiri on wax yar yaa walwalo ku gala mugdale special marka aad wax suubisay المهم وانا cabsaday buu yiri waa soo baxay waxaan aaday buu yiri dukaamadii hooyaday u tagay buu yiri waan rabay buu yiri hooyaday in aan u sheego laakiin waa cabsado yiri markii hadaba poliskii ay banaankii laga soo waayay maalinkii afaraad ayaa waxay yiraahdeen poliskii anaga banaanka wali wax car accident galay ama se dil ma la soo sheegin qof meed ma la soo gaarsiinin ee idinka family ahaan ayaa idinka bilaabeena interviewga markii la yiri ee the family ay iswada raaceen lagu yiri haye baniyo sabax adina interviewga aadide ayaa buu yiri haye waa imaana telefonkeygii aan guriga ku hilmaamay oo soo qaadana si baxana gaariga wata waa idinka daba imaana isla markii uu baxay train stationka ayuu aaday wuxuu rabay inuu train stationka oo qadaarka ama se tareenka maray oo isku dhigo laakiin nasiib wanaag waa la qabtay waa laga badbaadiyay police ayaa loo wacay waxa la ogaaday ninka aabihii la raadinayay inuu kani yahay interviewga lagu adkeeyay uu sheegay xoriyas marka shalaynay waxaana maqlay badana dadka qof waalidiintiisa dilay in la dilo marka ma rabiyo yiri sheekada sheeka ka shifmaysa
ayay u egtahay aya aawe la dhahay aabaha wuu u tilmaamay odaygii oo yacni xasbi allah wa ni'mal wakiil sidii maadaama wadda laba ogaaday inuu wiilkiisa uu dilay isla markiiba waa la duugay asagana waxaa lagu xukumay dil ayaa lagu xukumay because waxaa lagu yiri waabad ogeyn inuu qaanuunku qabo badanaa yani xaaladaha qaar in qofka daruuri ay tahay in dil lagu xukumo aabahana waliba waxaad u dishay baa layidhi qaraashiyar madaxeeda oo waliba meydkiisii saas aad u gashay ama sidaas arxan darada aad u dishay adigana inaad dhimatid waa almuhim wiilkii xataa asaga xataa hadda marxuum waa ilaahay lamadoodaba ha u naxariisto so I hope inaad ka heshaad like fara badan saara siin share garee qaybta commentiga kusoo sheega sida aad u aragtaan subscribe badanna noo saara because 10,000 content-kii haydaha intaan ku kulmeeno fi amaanillah